madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama ayaa ku soo laabtay howlaha ololaha madaxtinimada ee Mareykanka isagoo taageeraya Joe Biden waxaana uu ku qaadqaaday ninka xilka uga dambeeyay Donald Trump isagoo sheegay inuu baabi'iyay sumcaddii Mareykanka uu ku lahaa dunida. Mr. Obama waxa uu ku dhaliilay madaxweyne Trump inuu ku guuldareystay inuu wax ka qabto fayraska corona waxaana uu ku eedeeyay in maalin kasta uu been sheego. musharaxa madaxtinimada xisbiga dimuqraadiga ee wadanka Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in madaxweyne Trump aanay ahayn in uu madaxweyne si ahaado xilli 220,000 qof oo Amerikaan ah ay u dhinteen fayraska corona. waxa uu ka hadlayay doodii madaxtinimada ee ugu dambeysay ee lagu qabtay Nashville iyadoo 12 maalmood ay ka harsan tahay maalinta codbixinta Mareykanka. dhankiisa madaxweyne Trump ayaa sheegay in siyaasadihiisa ay nolol badan badbaadiyeen isagoo Mr. Biden ku eedeeyay inuu doonayo inuu dalka xiro. Mr. Trump ayaa waxa uu gaashaanka u daruuray eedda kaga imanaysay ninka ishayaan ee ah inuu taageero kooxaha ay ku fogtahay caddaannimada. waxa uuna sheegay inuu yahay qofka cunsuriyadda ugu yar ay ku jirto qolkaasi ku jira. doodii xalay ayaa u muuqanaysay mid ka degan tii koobaad ay labadan yeesheen iyadoo midka kale uu ku eedeynayay musuqmaasuq dhaqaale. mar uu ka hadlayay wararka sheegaya in Ruushka, Shiinaha iyo Iran ay isku dayayaan inay galaangal ku yeeshaan doorashada Mareykanka ayuu Mr. Biden sheegay in dal kasta oo faragelin lagu sameeyaa ay tahay inuu cawaaqib adag wajaho sida hadalka u dhigay. Mr. Trump ayaa waxa uu ku adkaystay dhankiisa in Ruushka uu la dhaqmay si ka adag qaabkii Biden. goortii horeysay hay'adaha sirdoonka wadanka Mareykanka ayaa waxa ay sheegeen in kooxo kombiyuutarada u dhaca oo Ruushka u dhashay ay maalmihii la soo dhaafay bartilmaameedsadeen 10 waaxood oo ka tirsan dawladda Mareykanka halkaasna ay ka xadeen ugu yaraan 2 goobood oo xoga oo ay ka qaateen xog lagu keedinayo halkaasi. horta xalay way ka deganeed doodii hore ee dhexmara ee madaxweyne Trump iyo Joe Biden waxyaabaha ugu weyn ee maaragtay doodan lagu soo hadal qaado waxa kamid ah dhaqaalaha cudurka coronavirus wax ka qabashadiisa iyo sidoo kale cunsuriyadda ee Mareykanka oo haatan la daaladhacayo sida wax looga qaban lahaa. haddii aynu ku hormarno arinta dhaqaalaha madaxweyne Trump waxa uu leeyahay in haddii dib loo soo doorto cudurkan coronavirus ee ragaadiyay dhaqaalaha dalkaasi Mareykanka in uu wax ka qaban doono arinta dhaqaalaha sidoo kalena uu sare u qaadi doono oo waxa uu sheegayaa in dakhliga qafki soo gali karo uu ka dhigi karo ilaa ku dhawaad 15 oo $150 maalinkii. marka waxa uu leeyahay waxa wax ka qaban doona sidoo kale caafimaadka madaxweyne Trump hase ahaatee Joe Biden ayaa arintaasi ku gacan saaray. waxa uu leeyahay caafimaadka cudurka coronavirus ina haatan aad si noqonato madaxweyne ee dalka ka taliso ma aha ayuu leeyahay sababtoo waxa ku guuldareysan wax ka qabato cudurka coronavirus. Biden waxa uu leeyahay inuu keeni doono wax la yiraahdo Biden care oo sidii ah Obama care caymiska caafimaadka si wax loo qabto. xasan arinta maaragtay cimilada Trump waxa uu leeyahay inuu yahay qofka ugu wanaagsan doonayo inuu helo maaragtay daweyl wanaagsan sidoo kalena uu ku noolaado deegaan aad u wanaagsan oo quruxdiis qaba. hase ahaatee Biden ku gacan saaray waxa uu leeyahay waxaad ka fikiraysaa in maaragtay warshadaha la dhiso oo maaragtay Shiinaha uu ku fiirsanayso in maaragtay qaaca fara badan hawada lagu sii daayo saa awgeed uu ku guuldareystay ayuu leeyahay arintan. marka arinta ugu dambayso ee dood dhalisay waxay arintii ku saabsaneed cunsuriyadda iyo qaabka wax looga qabanaya iyadoo Trump la ogyahay inay taageerayaan kooxo fara badan ee cadaannimada dhankeeda maaragtay u janjeero. hase ahaatee Trump wuxuu leeyahay waxa uu yahay qofka ugu dambeeyay arintaasi u janjeero cunsuriyadda. hase ahaatee Biden wuu ku gacan saaray waxa uu yiri waxa ahayd madaxweynihii ugu xumaa ee soo mara abid Mareykanka ee la safta cadaannimada iyo dadka maaragtay u janjeero arinta cunsuriyadda.